السلام عليكم. وعليكم السلام. سودو فريزو. magacaygu waa Sagal. Si fiican. Waxaan ahay gabar saxaafadda soo baratay. Waxaan maqlay TV-ga inuu dad qaadanayo waliba gabdhaha kaliya. Wararta TV-ga boos ayaa ka banaan oo waliba gabdhaha kaliya inuu qaadanayo waa saxan tahay. waxaa kaloo sii jirto gabdhaha loo baahan yahay shuruudaha haddii ay soo buuxiyaan waa qaadanayna marka waxaan ku diin lahaa saxaafadda soo barata Soomaaliya haa waraaqaha aqoonsiga waxbarashada intus ka tahay waxbarashada saxan ujeeda waraaqahaaga oo saxiix waxaa kaloo doonaya inaan weydiiyo su'aalood ku saabsan sida muuqaalada loo jarjaro kale sida wararka loo tabiyo kale computerka isticmaalkiisa kale intaas waqtigeeda ma soo baratay mise wuxuu cusub tahay waan soo bartay xasuurin aad ayaan ugu fiicanahay okay waa gartay marka waxaan malaynayaa xagga aqoonsigaaga shaqo iyo waxbarashada ay wanaagsan tahay saacad ujeeda haddii aad computer ku fiican tahay qaabka muuqaalada loo upload gareeyo qaabka loo jarjaro intaba ku fiican tahay aan ku soo wareegtay marka shuruudo kaloo yaraa jiro aan ka wada hadlaynaa horta saan ujeedo waxaan u arkaa gabar diyaarsan ayaa tahay qaabkan hadda waraaqahaaga u jeedo horta waraaqahaaga aqoonsiga ah intan hadda ka arko aad baad ugu diyaarsan tahay ama ha noqoto waxbarashadaada ama xirfadda aad saxaafadda u leedahay balse waxaa jira shuruudo yar oo lagaa doonaya inaad buuxiso haddii aan shuruudahaas isku afahno ood buuxiso waxaan u malaynayaa si toos ayaa TV-gan shaqo uga heli doontaa weliba shaqo aad u madax bannaan tahay haddii aan isfahno waa maxay walaal shaqadaas shuruudahaas oo shaqada aan ku helayo shuruudaha shaqada ku helayso waa wax yar oo kooban wax saa u badan maahan haddii aan isku fahno waxaa ugu horeeya horta shuruudaha hadda xafiiska kuguma sheegi karo balse waa israacaynaa xaafadeydaan tegaynaa gaarigeegaan qaadanaynaa wax weyn maaha waa inaad anigii afgaratid oo kaliya haddaad anigii afgaratid waxaan u malaynayaa anaa agaasimo ka TV-ga anaana madaxa TV-ga si toos ayaad xornimo u shaqaysan doontaa haddii aad taas aan isku fahanad anigii afgaratid walaal shuruudaha oo aad sheegaysa aan buuxinayo ma waxay tahay mustaqbalkayga inaan ku helayo oo aan burburiyo shaqadan aniga waxaan ahay qof soo akhristay dhegeyso xiraan ku sheego aan kugu celiyo shuruudaha wax weyn ma ahan waad raacaysaa gurigeygaan tegaynaa nin inaad kulaysa isu afgartaan waa taqaana waad afgaranaysaa oo kaliya anaana madaxa TV-ga ahaa iloobin anaana TV-ga weyn waxaan ku ballan qaadayaa intaas isku afaanood iyo afgarato aniga si toos ah in aad shaqo u heli doonta weliba adiga oo madax bannaan mustaqbalkayga waxaan ku burburinayo shaqo kuma aan raadinayo aniga mana ahan gabdhaha Soomaaliyeed markay shaqo ku soo raadsadaan in aad sidaas ula dhaqantid ama waxyaalaha qaar oo mustaqbalkooda ku saabsan inaad shaqada aad ku siisid walaalkayga waan qaldan tahay aniga waxaan ahay qof soo akhristay shaqadeydana mustaqbalkayga kuma doorsanayo ma fahantay waan qaldan tahay hana u malayna gabdhaha Soomaaliyeed markii fursad ay soo raadsadaan inay mustaqbalkooda ay meesha isku burburinayaan hana u tiigsanin qofka duruufta u haysa inaad duruuftiisa uga faa'iidaysatid waana dhaqan xun tihiin haddii asaas shaqada dadka ku siisiin كل شغلات ما لنا هنا ومالنا التصعان ده تبغون شغلة هي أبو عاد هي أسكت ذكرتها uma malaynayo gabar Soomaaliyeed inay ku soo hor istaagayso adiga oo mustaqbalkeedana ay ku burburinayso laakiin waa dhaqan xuntiin TV-giina dadka ka shaqeeya شغلة ديارة